Dufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalkeena Soomaaliya ee gobolka Gedo oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan dowladda Kenya dhibaatooyinka amni ay ka geysanayaan gobolka Gedo isagoona ciidamada Kenya ku eedeeyay in ay burburiyeen xarun isgaarsiineed deegaanka Dhamas ku taalo sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada Kenya ay duqeymo dhinaca cirka u geystaan dadka maatida wuxuu xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo ugu baaqay in ay abaabulaan shirar lagu samata bixinayo ama lagu badbaadinayo dadka ku nool gobolka Gedo oo uu sheegay 8 sanadood ee la soo dhaafay in ay xasuuqayeen Kenya waa sida uu hadalka u dhigay sarkaalkan Soomaaliya gudahaan iyo daaqilka gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda dhibaatooyinka ay adeer waana mahadsantihiin haddaan ku hormaro dhacdooyinka silo gobolka Gedo ka mid waaweyn barakayo oo dalka Kenya ay ka haysato Soomaaliya NSP waxa ka dhacayna waxay la mid tahay waxa ururada argagixisada oo burcaddiimeedyada ay ka sameynayaan caalamka sida waxa ka dhacay afgooyo maanta waxa ka dhacay balca iyo waxyaabaha la midka oo ururada argagixisada dal walba ka jiro ay sameynayaan ururka argagixisada ana sida aan ognahay dalka Kenya aad waxa weeye saldhigyo u leeyihiin shaqooda qarsadaan taa waa arrinta filo dalkan ku soo noqday aan umada Soomaaliyeed u sheego dowladda Kenya dalkeena ku soo duushay markii ay u soo iskageliyeen shacabka reer Gedo ilaahay ku mahadsan بعدما dadka reer Gedo oo dad aad u sharaf badan ayagoo walaalada kale Soomaaliyeed kaasanayo waxa suurtagal ah danaacigi xukuumadda Kenya oo ahay in badda Soomaaliya laga toosiyo gobolka Gedo sidii ay badashay dowladda Kenya waxay ku badashay shacabka Soomaaliyeed in la cunaqabateeyo dhaqaale awal jiro mid nafsada ah waxa xalay كود يعني منو عيلك أرنا كلها كايا ونبتسجد يدورس كاسكاشن أي دمنا لنا السيناريا ويقول كده كلها أسر درون 3 كيلومتر وهاي كلهم شركة دورين وعائشة كري بالشدة قبل كده أبي تهدف هديت إسجارسين يهديت حوارات وهذا nolosha aadamiga oo ku tiirsan waxa la yiraahdo ECC iyo teknolojiyada casriga ah haddii xitaa ay umada Soomaaliyeed wax si ka noqdaan oo ama abaar dhacaan ama masiibooyin ama in mesela hooyo rafaasan oo meel ku fool ku rafaaday haddii ma dhaxtaayada guuleyn jiray shirkadda Hormuud oo shacabka Soomaaliyeed dhaqaalaha isku darsadeen aana nolosha kaliya dadkaas لكن مركو هذا بيان أي بيان شركة سنتر كذا هذا كمبيوتر وده تدرس عمله وحاد هنا يسكت العلم يكذا اللعبة مرة كيلومتر قبل كذا كاسو هاي البحر على يستين وعاد هنا دمر على مثلا حاول قبل يسكت كيلومتر وسنتر كذا اللي بده هذا رمكوا الله يبان وحال قولي degmada Gardaari oo magaalada Xalabada iyo degmada Ceelwaad inta u dhaxayso 180 kiiloomitir oo afartii galabnimo galabta dib loo sii daayay waxa go'ay degmada Ceelwaad iyo degmada Baardheere oo aan 210 kiiloomitir taasoo shacabkii Soomaaliyeed ee dhaqaalahoodii iyo noloshoodii isweddelkooda shirkadda Hormuud ku tiirsanaa ujeedkuna ay tahay inay dadkaas barakacaan oo meel isgaarsiin iyo nolol la aadaan si dhulkaas cidla looga qaato ujeedkii hadafkuna uu sidayahay waa gartay laakiin in shirkadda isgaarsiinta Hormuud deegaanka Dhamas ciidamada Kenya ay gubeen Cornel maxaa cadeynaa oo loo hayaa adeer awrul baytaalkiisu tilaasaday waxa kula hadlayo mas'uuliyiinta sarsare ee gobolka Subagaraan gobolka Gedo waxaan ka hadlayna waa miyadii waxaan la wadaagayaa mujtamac Soomaaliyeed waan kugu celinayaa ciidanka arrimaha gudaha ee dowladda Kenya oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga hoos yimaado booliiska iyo nabadgelyada dalka Kenya oo wata gaadiidkoodii lagu yaqaanay iyo calaamadahoodii degmada tuulada Dhamas waxay gudeen shirkaddii Hormuud ee Dhamas
sidaad garanaysaan bana bishii hadda naga dhamaatay bilowgeedu waxay gudeen shirkadda hormuud ee degmada ceelwaad bishii sagaalaad ee 2017 waxay gudeen shirkadda hormuud ee Khadiija Xaaji taa oo ujeedku yahay shacabka Soomaaliyeed oo meeshaas ama isgaarsiin iyo isma qaray u tahay ama arrimaha samafalka ay uga shaqeyso ama ay xawaalad dowto noloshoodii dhiishiisooda ay ku jiraan ilkalla uma qabatay inuu shacabku cararo dhulkana cidla laga qaato oo waxa weeye baddi Soomaaliyeed iyo biriga dadku ay difaacayeen meeshaas si sahlan lagu qaato waa damaciga dowladda Kenya dadka Soomaaliyeed sharaf kalena aragti dheer buu kaleeyahay inta baaqdan ku soo marka waa su'aal leeyahay ku furanta waa gartay marka maxay doonayaan oo talaabooyinkaas oo dhan ay u qaadayaan maadaama shirkadda ay tahay shirkad ganacsi oo amni iyo siyaasad arimaheeda aanan wax shaqo ku lahayn taasi waa sadar muuqda su'aal ka dhan waa arrinka kaliya oo markii ay damcaan inay dhulkayada booraan sida boobkii ka dhacay balad xaawo iyo bibiwad iyo malkaariye shacabku uu isku caanahayo waa isgaarsiinta saxaafadda looga ogolo gobolada Jubba oo kooxda dowladda Kismaayo joogto iyo dowladaha dalka ku soo duray Kenya ugu horeysa saxaafadda waa loo diiday gobolka Gado oo adoonka labaad ee 18 gobol horta ugu weyn shacabku wuxuu la xiriirayaa saxaafadda caasimada iyo meelaha kale muhiimka asaguna wuu soo cayaay oo gargaarayaa meesha dhaqaalaha uu marayana waa shirkadda Hormuud haddii ay tahay waxa weeye mid samafala iyo hadday tahay serviceka nolosha bini'aadamka taa markay soo jeedo waxaa weeye dadka waa la laayay diyaaradaha lagu duqeeyey ciidamada loo diray waa la xasuuqay waa la xabsi Nairobi qaar baa dadkan ku xirxiran iyo tan iyo Gaarisa soo dhan markii labatay saddex lagu siiyo ay u barakacaan oo ay gobolada Baay iyo Bakool iyo dhulalka isgaarsiintu ay u furan tahay iyo meelo fog ay dadku u aadaan dhulkaasna difaaciisu u banaanaado ujeedadu waa intaas waxaan doonayaa inaan marxaladan ka faa'iidaysanayo inaan baaq u diro dhammaan shacabka Soomaaliyeed dibad iyo gudaha inaan idhaahdo in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool gobolka Gado oo muddo 8 sano ah duqeyn iyo xasuuq lagu hayay meeshii ugu dambeysay marayaan waxaa la cunaqabataynayaa noloshoodii nolol maalmeedkooda nafsadda ujeedka ka dambeeyana waa sida aan sheegay waa in dhulkii la dhaco waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed way ka duwan tahay arrinta gobolka Gado arrinta Soomaaliya inteeda kale ka jirto waa dhulbood lagu xasuuqayo mujtamaca Soomaaliyeed haddana cunaqabatayn nafsadda marayso dadka reer Gado oo gaar ahaan caasimada kuwa jooga oo hadli kara waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku maamaalaan ruqad ninkii hadalada uga taagan yahay ma kacdo ee isu soo baxa Gado xildhibaanada Gado ka soo jeedo oo kaashanaya dadka sharafta leh Soomaaliyeed mas'uul iyo غير mas'uul in la abaabulo shirar lagu badbaadinayo 3 milyan oo qof oo cunaqabataynta nafsadda lagu sameeyay dhaqaalahoodina la burburinayo in la difaaco sharafka dadkaas iyo dhaqaalihiisa iyo noloshiisa aanada tadabada la qabtay handadooda la darqabtana kaasana uu diitanaya mujtamaca Soomaaliyeed waa gartay marka maxay si gaar ah Gado sida hadda adigaba aad sheegayso dhibaatada ugu badan ay ugu dhacayso maxay tahay aad ma santahay waa sadar muuqda su'aal ka dhan dadka reer Gado waxay diideen damaciga dowladaha dariska oo aad u fog oo sanbadka wada garan kaasoo ah dhulka Soomaaliyeed in la qaybqaybiyo oo gobolka Gado markii waxa weeye 80% NFD lagu daro oo Nairobi laga xukumo inta kalena ardi sababo lagu daro kalifaad oo jijiga laga xukumo iyo ardi sababa kaas oo koox dowlaysato oo jijiga Gaarisa laga yimid oo kuwii ay guulaysanayeen dowladaha Itoobiya iyo Kenya dadkii ugu rabaaysan anoo ma cilmiga dad badan oo sharaf leh Soomaaliyeed qaranimada Soomaaliya jecel ama dhulalkaas Kenya iyo Itoobiya ay haystaan u halgamayo inay jiraan garanayo haddana koox dowlaysato jijiga Gaarisa laga keenay dadka Kismaayo loo dhigay dadka reer Gado marka danaca foosha xun oo dowladahaas dad garanayo iska difaacayo kooxdan xajirka burcadiineedka ana ka horeystay gobolkooda inta badan
xoogaa u dhuumaadaysi hawsha ugu jiro oo hadda ay raadayaan moodiyo sidaa awadeed marka in dadkaas ayaga nolosha iyo dhaqaalaha lagala diriro oo shirkada hormuud oo dadku waxay ku leeyihiin lagala diriro weeye ujeedadu waa sidaa dadka reer Gadoona dee dadka Soomaaliyeed wada jirkiisa dad u duwan weeye xarumaha dhaqan celinta ee Al-Abraar alla dhibkii laga raysay dhibdhaamo waa ilaahay markii garasho dheer iyo caqli wanaagsan lagu dhisay dhidibkood la taagay xarumaha dhalaale lagu dhoobay ammaan iyo bogeedinaan dhammaanay waana xarumaha dhaqan celinta ee Al-Abraar way dhamaatay intii iyo dhaliishii la tixi jiray ruuxii dhaqan wareemo balwadu ay ku dhaashaa ay dhantaasho maankiisiyo kuwa dhimarka jiran oo caqligooda kala dhiman dhaqaatiir habboon iyo kumbiyuutarada la dhacay